kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada channelka xaqiiqsan media qodobada ugu waaweyn aad ku maqli doontaan waxa kamid ah Imaaraadka Carabta oo qorsho cusub ka damacsan Soomaaliya iyo wafdi ka socda oo safar qarsoodi ah ku yimid Muqdisho waxgaradka beelaha Hawiye oo farta ku fiiqay siyaasiyiin ee xildhibaano ku howlan duminta dawladnimada Soomaaliya diyaarada dagaal oo duqeeyay saldhigga ay al-shabaab iyo Daacish ku leeyihiin deegaanada Puntland iyo faahfaahin laga helay khasaaraha ka dhashay xiisad ka dhex qaraxday Mo Faarax iyo Hayla Gabrasalaasa iyo Mo oo sheegay in la soo weeraray xisbiga himilo qaran oo shirweyne ku leh Muqdisho iyo xubno miisaan leh oo xisbiga ku soo biiray Mareykanka oo shidaal ku sii shubaya khilaafka dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada akhbaaraadka caalamkana daawadayaal waxa ugu doorka roon banaanbaxayaasha dalka Suudaan oo weli ku sugan saldhigga military ee dalkaasi intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweyn markana waxa ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan Imaaraadka Carabta ayaa qorsho cusub ka damacsan Soomaaliya iyadoo wafdi ka socdan ay soo gaareen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya mas'uuliyiin ka socda Imaaraadka Carabta ayaa safar qarsoodi ah ku yimid magaalada Muqdisho kuwaas oo la kulmay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya ila xogogaal ah ayaa inoo sheegay in mas'uuliyiin ka tirsan Imaaraadka Carabta ay weheliyaan xubno ganacsato ah si qarsoodi ay ugu soo degeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho halkaas oo hotel ku yaala ay kula من مسؤولين كترسن دولة فدرالك Soomaaliya oo ka mid yahay wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya lama oga waxyaabaha rasmiga ay ka wada hadleen balse warar hoose oo aan helayno ayaa sheegaya inuu socdo dadaalo la doonayo in la isugu soo dhaweeyo Imaaraadka Carabta iyo dawladda Soomaaliya oo muddooyinkii u dambeeyay xiriir wanaagsan aanu ka dhaxeen midowga Imaaraadka Carabta ayaa la dhacsaneen hanaanka maamul ee madaxtooyada Soomaaliya kadib markii ay kaga gacan sareysay dawladda Qatar oo khilaaf uu kala dhaxeeyay dalalka Khaliijka dawladda Sacuudiga ayaa kamid ah dalalka daneeya in ay isku soo dhaweyso Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta oo khilaaf ba'an uu ka dhaxeeyo kaas oo sababay in xukuumadda Dubai ay joojiso taageerada ay siinayso Soomaaliya isla markaana saraakiishii kaga sugnay Soomaaliya kala baxday dhanka kalena waxgaradka beelaha Hawiye ayaa farta ku fiiqay siyaasiyiin iyo xildhibaano ku howlan duminta dawladnimada Soomaaliya gudoomiyaha Odayaasha dhaqanka iyo midnimada beelaha Hawiye mudane Maxamed Xasan Xaad ayaa ku eedeeyay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya qaarkood oo loo igmaday samaka talinta shacabka inay haatan horboodayaan shirar ka dhacay dal Soomaaliya oo khilaaf masiiri ah kala dhaxeeyo nabadoon Xaad ayaa tibaaxay in mucaaradka micnihiisu yahay in la saxo dawladda balse uusan ahayn wax dumin sida uu hadalka u dhigay waxaana uu eedeymo kulul u jeediyay siyaasiyiintii dhawaan ku kulmay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya diyaarada dagaal ayaa duqeeyay saldhigga ay al-shabaab iyo Daacish ay ku leeyihiin deegaanada Puntland iyo faahfaahin laga helayo khasaaraha ka dhashay diyaarada dagaal oo la ogeyn halka laga leeyahay ayaa weerar cirka ku qaaday saldhigga al-shabaab iyo Daacish ay ku leeyihiin deegaano hoos yimaada degmada isku shuban ee gobolka Bari saraakiil ka tirsan ciidanka maamulka Puntland ayaa xaqiijiyay in duqeynta la beegsaday ay ku sugnaayeen dagaalyahano ka tirsan al-shabaab duqeynta ayaa ka dhacday nawaaxiga tuuladaasi Dimirshe oo ay ku sugan yihiin Daacish to ku sugan deegaanada maamulka Puntland dadka deegaanka ayaa sheegay in diyaaradahaasi gantaale ay ku garaaceen saldhigga ay al-shabaab iyo Daacish ku leeyihiin deegaanada ka tirsan Puntland diyaaradaha dagaalka Mareykanka iyo kuwa Kenya ayaa inta badan ka fuliya weerarada cirka oo inta badan lala beegsado goobaha ay ka taliyaan al-shabaab iyo Daacishta Soomaaliya dhanka kalena xisbiga himilo qaran ayaa shirweyn ku leh magaalada Muqdisho iyadoo xubno miisaan leh oo xisbiga ay ku soo biireen madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa shalay gelinkii dambe Muqdisho ka furay shirka ansixinta xeerka xisbiga himilo qaran madaxweynaha ayaa sheegay in xisbigu mudnaan gaar ah siin doono dhalinyarada iyo haweenka Soomaaliyeed xildhibaan Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe ayaa loo doortay gudoomiyaha ku-meel gaarka ee golaha dhexe xisbiga himilo qaran shirweynihii koowaad ee shalay Muqdisho ka dhacay shirweynaha shalay ayaa hordhac u ah shirweyne oo xisbiga himilo qaran maanta ku qabsanayo magaalada Muqdisho kaas oo lagu shaacin doono golaha dhexe ee xisbiga gudoomiyaha ku-meel gaarka ee xisbiga himilo qaran xildhibaan Suleymaan Maxamuud Xaashe ayaa loo doortay gudoomiyaha ku-meel gaarka ee guddiga fulinta kadib shirkii maanta lagu ansixiyay xeerka xisbiga himilo qaran xiisad ayaa waxa la sheegay inay ka dhex qaraxday Mo Faarax oo ah orodyahan caan ah iyo waliba Hayla Gabrasalaasa iyo waliba Mo Faarax tababariisa oo sheegay in la soo weeraray orodyahanka Soomaaliyeed ee Mo Faarax iyo kan reer Ethiopia ee Hayla Gabrasalaasa ayaa weerar afka ah isku qaaday iyadoo tababaraha Mo Faaraxna uu sheegay in la soo weeraray
Mo Farah iyo Gabre Salaase ayaa waxaa dhexmaray muran ka dhashay alaab Mo Farah uu sheegay in looga xaday hotel uu Gabre Salaase ku leeyahay magaalada Addis Ababa. Gabre Salaase ayaa sheegay in Mo Farah uu feeray isla markaana haraantiyay nin iyo xaaskiisa oo hotelka dhinac ka deganaa, hase yeeshee gaari Laaf oo ah macalinka Mo Farah ayaa sheegay inuu naftiisa difaacay oo la soo weeraray. Laaf ayaa sheegay in Mo Farah iyo nin la barta oo lagu magacaabo Abi Bashir oo ku sugan qaybta jimicsiga ama jimka ee hotelka uu nin kale u yimid una hanjabay. Mo Farah ayaa Arbacadii sheegay in lacag saacad iyo 2 taleefan looga xaday hotelka Gabre Salaase Addis Ababa 23 bishii Maajo, wuxuuna sheegay inuu aad uga niyadjabay Gabre Salaase maadaama uu awoodi waayay inuu u helo alaabtiisa. dhanka kalena Mareykanka ayaa shidaal ku sii shubaya khilaafka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug, Jubbaland iyo Puntland ayaa shir la yeeshay safiirka dowladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Donald Yamamoto. Shirkan ayaa ka dhacay magaalada Nairobi oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaayeen madaxda maamul goboleedyada. Kulanka ayaa looga hadlay sidii si wada jira xal waara loogu raadin lahaa siyaasadda Soomaaliya oo hadda ay ka muuqato khilaafaad fara badan oo haddii ay sidan ku sii socoto keeni kara burbur iyo dib u dhac cusub. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dadaal ku bixinaysa sidii loo yareyn lahaa faragelinta beesha caalamka iyo maamul goboleedyada, isla markaana u soo afjari lahaayeen xiriir hoosaadka maamul goboleedyada iyo beesha caalamka. dhanka kalena wararka naga soo gaaraya dalka Suudaan waxa ay sheegayaan in banaanbaxayaasha dalkaasi ay weli ku sugan yihiin saldhigga military ee dalkaasi. Kumanaan qof oo dibadbaxyo ka dhigaya dalka Suudaan ayaa shalay salaadii Jimcaha ku tukaday afaafka hore ee saldhigga ugu weyn militariga Suudaan ee ku yaala magaalada Khartoum, halkaas oo ay dibadbaxyo ka dhigayeen. Dadka dibadbaxyada dhigaya waxay ka codsadeen militariga inay xukunka ku wareejiyaan dowlad rayid ah. Khamiistii hogaamiyaasha militariga Suudaan ayaa ku baaqay in malaayiin qof ay isugu soo baxaan wadooyinka caasimadda Khartoum. Guud ahaan warkii aad kala socoteen channelka Xaqiiqsan Media daawadayaal waa naga inta.